Waan ku salaamay saaxiib. Haddii aad i weydiiso dareenka ugu wanaagsan ee adduunka, waxaan ku leeyahay waa inaad dareento inaan lagu dhayarsanayn, inaad meel aamin ah aad ku jirto xataa haddii aad gafto, in lagu fahmay xataa haddii erayada aad sheegaysaa ay isku dhex yaacsan yihiin oo aan si quman u odhanin, inaanay wax lagugu doorsanayaa jirin xataa haddii xaalku uu kugu xumaado oo gudaha aad xasilooni darro ka dareemayso, iyo inaan lagaa tegaynin xataa haddii aad dareemayso inaad u baahan tahay naftaada inaad ka tagto. Saaxiib, ma jiraan wax ka wanaagsan inaad ogaato in mar walba laabtaada la xasilinayo, ilmadaadana la masaxayo si kasta ay duruufuhu noqdaanba, gacantaada aan la sii deynayn si kasta ay xaalku u qaraaraado. Saaxiib, ma jiraan wax ka wanaagsan inaad hesho qofkii ku odhan lahaa adiga ayaa mar walba kaalinta koowaad ii jooga, wax walbana adiga ayaa agtayda kaga mudan, xataa naftaydana ku dheh oo weliba aan ku ekaynin hadal aad habdhaqankiisa iyo ficiladiisana ka aragto, oo uu raaxadaada tiisa ka hormariyo, qaraarahaagana uu kiisa ka horraysiiyo, xataa haddii uu ogaado arrin adiga kuu roon isagana u daran dooranaya inuu adiga kaa farxiyo. Haba murugaado isaguye. Saaxiib, ha ii malayn inaan ka badbadiyey. Dadka jaadkaas ahi waa dhif iyo naadir, laakiin way joogaane. Ha ii malayn inaan ka sheekaynayo 3 lama arkaan ay carabtu isku maaweelin jirtay ee kala ahaa qorismariska, qool, shimbirtii canqaa iyo saaxiibka oofinta leh. Haddii aad qofka shakhsiyaddaas leh weydo, noqo adigu qofkaas.